kooxda Inter Milan ayaa caawa la ballansan kooxda bandhigeeda laga yaaban yahay ee SSC Napoli oo ay ku wada ciyaarayaan gegada San Siro kulanka toddobaadkan ugu kulul horyaalka Talyaaniga. Napoli ayaa iminka kaalinta kuwaad kaga jirta horyaalka Serie A Talyaaniga walow ay toddobaadkii tagay gool darro bahdil ahayd oo 3-0 kala kulantay kooxda dhibka badan ee Atalanta waxaana doonaysaa in ay karaahiyada ka soo kabato. Inter Milan dhanka kale kaalinta labaad ayay kaga jirta horyaalka si adkaanaya ee Serie A Talyaaniga. Nerazzurri oo wali ku naaloonaysa daafaceeda adag waxa ay kulankii ugu dambeeyay 1-0 kooxda Arsenal dhanka Champions League waxaana iska cad in ay kulanka kalsooni badan ka qaaday. dhanka taariikhda haddaanu eegno Inter Milan ayaa ka turufroon kooxda Napoli oo waxa ay garaacday 81 kulan 176 ciyaarood oo iskaga hor yimaadeen marka loo eego Napoli oo badisay 52 kulan. Napoli sidoo kale mar qura ayay badisay 10 kulan ee ugu dambeeyay ee ay wajahday kooxda Inter Milan dhanka Serie A. guusha qorina waxa ay timid bishii Maajo ee sanadkii tagay oo ay 3-1 ku garaacday. sidoo kale Inter Milan waxa ay kooxda SSC Napoli garoonkeeda ku garaacday 51 jeer dhanka Serie A waana kooxda ay ka haysato rikoorka ruquusitaanka ah ee ugu wanaagsan marka dhammaanba la eego taariikhda horyaalka Serie A. sidoo kale Napoli waxa laga badiyay 7 kamid ah 12 kulan ee ugu dambeeyay ee Inter Milan ku wajahday Serie A waana rikoorka ugu liita ee ay kala timaado koox ka ciyaarta Serie A muddadaasi. sababka laga yaabo haddii aanu eegnana Inter Milan oo bartamii toddobaadka dhowr laacib nasisay kulankii Arsenal waxay ku soo gali kartaa Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, Thuram iyo Martinez. dhanka SSC Napoli waa Meret, Di Lorenzo, Rahmani, Buongiorno, Oliveira, Anguissa, Lobotka, Politano, McTominay, Kvaratskhelia iyo Lukaku. imikana dhanka Premier League labada kooxood ee reer London ee Chelsea iyo Arsenal ayaa xaddan isku wajahaya gegada Stamford Bridge ee magaalada London kulan ay kooxba ku doonayso inay kalaradeeda ku midabeyso magaalada London. Arsenal imika kaalinta shanaad ayay kaga jirtaa Premier League bandhigeeduna wuxuu ahaa mid kacakuf ah iyadoo kulankii ugu dambeeyay ay gool madi ah ku soo martay kooxda Inter Milan dhanka Champions League. yeelkeeda Chelsea waxay ku jirtaa kaalinta afraad bandhigeeduna uu dhaamaa sidii uu ahaan jiray sanadihii u dambeeyay iyadoo kulankii ugu dambeeyay 8-0 laqsiisay kooxda yar ee Nuux ee ka dhisan wadankaasi Armenia oo isku arkeen koobka ciyaalka xaafadda ee Conference League. dhanka taariikhda Arsenal ayaa ka rikoor wanaagsan Chelsea oo waxay badisay 83 kulan oo kamid ah 209 ciyaarood oo dhaxsaday labada naadi ee waaweyn ee reer London. marka loo eego Chelsea oo badisay 66 kulan Chelsea ayaa kulan qura ka badisay kooxda Arsenal 9 kulan ay ugu dambeeyay dhanka Premier League. guusha ay ka gaartay Gunners ayaana timid bisha Agoosto ee 2021 oo ay 2-0 laqsiisay. Arsenal ayaa sidoo kale ku naaloonaysa rikoor kale oo wanaagsan waayo waxa ay badisay 3 kulan oo kamid ah 4tii ugu dambeeyay ee Chelsea kula ciyaartay garoonkeeda dhanka Premier League waana guulo u dhigma dhammaanba 20 kulan ee ka horeeyay ee ay Chelsea garoonkeeda kula soo ciyaartay. Arsenal ayaa sidoo kale muujinaysa inay tahay cudud ka soo baxday magaalada London waayo waxa ay badisay 6 kulan ay ugu dambeeyay ee ay ku wajahday kooxaha kala dhisan magaalada London dhanka Premier League iyadoo waliba ka dhalisay 22 gool kulamadaasi. safafka laga yaabo haddii aanu eegno dhinaca Chelsea waa Sanchez, Justo, Fofana, Colwill, James, Lavia, Caicedo, Madueke, Palmer, Neto iyo Jackson. waxaa dhaawacan Kellyman waxaana shaki ku jira Palmer iyo Sancho. waxaase jira laacib aan safan karin waana Raheem Sterling maadaama aan wajahi karin kooxda uu amaahda kaga soo maqan yahay ee Chelsea. Maxamed Xaaji, Hadal Same TV.